هي سورة أنعام هي قصص كذي قصة ما أنت ندين سو قورين يو وقصة أنيجا قفكي أرنتاس أيقود عضي عن حرف فريستي سيد عن ندين حرف فريو ومركلة هي فرحة سورة أيقود حشين دونتو أنعام ولا الآن آدو جعل هاي وأهل القرآن أي وحول maalmaha kamida anoo joogo dalkii caasimada waliba muqdisho anoo ku nool qisadan aad bay ku saameyn doontaa walaalo fara badan gaarsi walaalo fara badan oo sheer gare adoon sheer gareynin oo kitaabka rabbi aan umada la wadaagin faa'iidada umada uu dhaxashiinayo ha ka tagin hana maaratay dhaafin adigoo aan clipka dhamaysan leegna saar share saar insha Allah taala sifo walaalo fara badan khayrka ugu faa'iideystaan walaalka wuxuu yiri anagu caasimada muqdisho ku nool maalmaha kamida ayaa waxaa dhacday buu yiri waa waagay wuxuu yiri raggan dhalinyarta ay soo baxeen kadibna wuxuu yiri gurigayga qisadan dhageyso wuxuu yiri gurigayga ayaa nin kamida raggii maxay ahayday burcad ahaa si kale hadaan u dhigo raggii umada baabi'in jiray maxay ahayday yani qoryaha haystay ayaa wuxuu yiri mid kamida oo qaadaco dariiqa oo ciidanna wata umadna haysta ayaa wuxuu yiri agtayda gurigayga ayuu isbaara dhigtay ragaana waxa caan u ahayd buu yiri isbaara qofka dhigta guriga iyo meesha uu ku yaalo iyo ka haystaba in isla qarxiyaan aniga marka guriga ana leh meesha ninkan isbaarada ku haystana waa waagii muqdisho qasnayd ninkan meesha uu dhigtay isbaarada umada uu ku baadhana guriga ku qabsanta laba dara markaa mid dooran wuxuu yiri xaq waxaan ka baqay inay raggi ii maleeyaan inaan aniga ahay qofka isbaarada haysta maadaama gurigayga ag taalo oo gurigaygiiba ay dhinaca ku hayso qodobka labaad wuxuu yiri raggi waan ka baqayaa kana waan ka baqayaa hadaan u tago waxaan ka baqayaa inuu ii dilo wuxuu yiri markaa laba daran mid baan doortay isaga ku dhirido waxaan ku dhayntaan u tagay walaalow bahashan iga qaad raggi yaraa waan ka baqayaa inay dib gaarsiiyana mar rabo iga qaad wuxuu yiri qori intuu soo qaaday oo afka saa iga geliyo yiri car ila hadal wakaas shan baan kugu dhufanaya hadaa hadal dambe igu soo celisana ogow madaxaaga maqan wuxuu yiri wax hadal kale oo ii furan ma laha waa walaalkay aan jecelahay oo ahlul quraan ah qisada meeshu iga sheekeynaa waa Nairobi wuxuu yiri marka anigoo murugsan oo leh dawar ku dhamaatay marka sababta ragaasi mooga aniga ninkan waxa dhex maray oo ma baaqaanba kadibna waan soo laabtay waxaan ku soo laabtay buu yiri gurigayga anigoo murugsan oo qalbigayga uu ka muuqdo murug xasiin ano ah baan misaata galay sheekh wuxuu yiri culimada kamid ah ahlul quraan haba ay arkay oo yaqaanay markaas uu yiri buu yiri war walaalow maxaa ku haysta qisadii baan u sheegay wuxuu yiri suuratu an'aam afka saar maalin walba oo suuratu an'aam aad akhrido kadalika markaad marayso kadalika fatanna bacdhum marka aad marayso aayada waxaad ku cadaftaa buu yiri suuratu yaasiin haddaad bishaare heli weydo waxaan kuu sheegay waxba kama jiraan buu kadibna wuxuu yiri suuradii baan bilaabay muddo wuxuu yiri ka yar 40 iyo dhowr bari gudaheed ayaa nin ordiya ii imaaday buu yiri markaas uu yiri abshir ya fulaan saan ku dhaabi haye ninkii hebel ahaa maanta ayay nin kale oo ragiisi kamid ahaa is afdhaafeen madaxa la qaaday qaado dariiqi madaxa la qaaday sidii ayuu ku dhintay wuxuu yiri markaasaan nafisay ilaahayna ku xamdiyay oo ku shukriyay halkaasuna ilaahay qaado dariiqi xagna umada dhibayay xagna aniga awoodda ii sheeganayay ilaahay igu dhaafiyay suuratu an'aam ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodda alle ka soko alle ku badbaadiyay ma jeceshahay adiga inuu alle kugu badbaadiyo suuratu an'aam oo nolosha aad ku jirtana uu kaaga saaro cadow ku haystana uu kaaga heliyo suuratu an'aam qisaskeeda waan wadi doonaa inta aan idin soo tabina waa dad aniga aan hor fadhiistay ma aha dad ii soo tabiyay ama dad aan shaqa kale ku maqlay waan wadi doonaa an'aam adiga isku day mar walbo in aad akhrido khaasatan dadka sixirka ka cabanayo khaasatan dadka ka cabanayo isha cadawga kale ka cabanayo dadka faqriga ka cabanayo waan soo wada qisadii walaalkii uga baxay faqrinimada insha Allah taala waandood markaan dhay walaalahan kitaabkan wataana waa kitaab quraan dad baan arkay ii soo qoray kitaabka noo soo sheeg waa quraan anigana an'aam ayaan dhankayga ka akhrinaya laakiin qofna aniga ilaahay baan ka maan galay inaan qof bilo aadan ama aragtay aan qalbigayga wax ugu qaado سادرتد أنا أذيبه
سورة الأنعام هلكينا كنت تايا كاري أنا خلي قفل بو اسكو داي مالنتي إن ضميسو لبا جار سدح جار أما هل جار inta aad awoodo wad ilaa geeridu kaaga timaado sidaasay kaaga siibi doontaa nolosha aad ku jirto waxay ku dhex gelin doontaa nolol farxad iyo khayr oo dhan uu ku jiro aad baa u mahadsantahay sheer gare clipka walaalo kalena gaarsii ballankeenu waa cugsashada ama waa qabsashada kitaabka rabbi khaasatan suuratu ancaam